2057 qoraxda waxay noqon doontaa mid madoobaad ama iyada dhan la waayo. Maanta muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa filim aad u xiiso badan kaas oo ugu magacaabo Sunshine. waxa uuna soo baxay sanadii 2007. waxa uu ku bilaabanayaa filimka hadda sanadu waa 2057. bini'aadamku waxay wajahayaan inay dabar go'aan sababtoo ah waxaa dhimanaysa ama madoobaanaysa qoraxda. 8 cirbixiyeen ayaa loo doortay inay arrintaani hawada sare ah soo xalliyaan. ilaahay baa u xalliyay. waxayna hayeen cirbixiyeen waaweyn waxayna fiirfiirin doonaan babooyinka xidigaha kuwaasi oo laga arkay jasiiradda Mantam iyadoo ujeedadoodu ay tahay inay bilaabaan sidii qoraxda hawada sare loogu soo celin lahaa. harumaysan inay qoraxda baaba'day waxaan waa filim oo kaliya, laakiin markii ay hawada sare soo aadeen way ku lumeen kahor inta aysan gaarin xidigaha. 7 sano kadib dhulku waxa uu noqday mid barafooway waxaana ka batay qabowga iyo qorax la'aanta. Soomaaliya alxamdulillah dhaa haddii aad qorax haysataan. shaqaale cusub oo 8 qofood ayaa loo doortay hawada sare si ay mar kale isugu dayaan. Shirley waa dhakhtarka dayax-gacmeedka iyo sargaalka ku takhasusay cilmi nafsiga. waxa uuna noqday mid ku waalan daawashada qoraxda waxaana wejiga ka qabanaya iftiinka qoraxda kaas oo ay ka sameeyeen. yaa badanaa qorax ayay bixiso u qabaan waayo ma haystaan wax qorax ah. waxayna isugu yimaadaan casho dhammaantooda. horta aan baranno marka koowaad dhammaan shaqaalaha looga talagalay inay qoraxda soo celiyaan. waxaana ka mid ah Engineer James May iyo gabadhan dooliyaha ee Kezia Crozon oo ku takhasusay cilmiga noolaha, sargaalka isgaarsiinta iyo taliyaha labaad ee Hervey, kabtanka dayax-gacmeedka ee Kanda iyo Taray iyo gabadhan ugu dambaysa oo lagu magacaabo Robert Keba. laakiin waxay ka wada tashanayaan qaabka ay ugu dhaqaaqi lahaayeen qorshahooda. waxayna falyaan inay masaafadan ku guuleysan doonaan iyadoo dhawaan ay gali doonaan aagga dhintay taasoo la macnaha ma awoodi doonaan inay la xiriiraan dhulka mar dambe. markaana shaqaalaha waa inay u diraan gurigooda ama familkooda fariimahoodii ugu dambeeyay. mid ka mid ah ayaga ayaa wax u duubaya muuqaal waalidkiisa iyo walaashiisa isagoo u sheegaya inaysan mar dambe la soo xiriiri karin, laakiin waxay rajaynayaan inay ku guuleysan doonaan inay qoraxda soo baxdo iyagoo markaasi fariin helaya. si kastaba haatee markaana uma helin waqti dheer oo ay kula xiriiraan dadkooda waxaana dhexdooda ka bilaabanaya digaal. James Mack waxa uu isku dayayaa inuu dagaalkaani bilaabo balse si loo kala saaro saaxiibkiisa uu la dagaalamay waxaa loo soo diraa Shirley inuu dadkan isdagaali uu kala saaro. wax uu u sheegay Shirley inay waqti haysanin oo ka dhamaaday waqtigii ay haysteen. dhanka kale Kanda waxa uu sii wadaa inuu daawado warbixinadii hore kaas uu soo diray nin lagu magacaabo Jeremy Barker. kabtanka dayax-gacmeedka ayaa u sheegaya Crozon isagoo xaqiijinaya in beerteedii ay soo saarayso oksijiin badan. taasna waxay ahayd dhibaatadii shaqaalihii hore haysatay. markaana Kezia waxay ogaatay inay marayaan Mercury-ga. markaana shaqaalihii oo dhan waxay aadeen qolka kormeerka si u daawadaan. muddo kadib Hervey waxa uu hubinayaa nidaamka komiska wax uuna sameynayaa daafur muhiim ah gudbinta garaaca signalka ciriiriga ah kaas oo ka imaanaya dayax-gacmeedka ay direen. waxayna muraayada dayax-gacmeedka ku sareen mowqifyadooda waxayna garwaaqsadeen inaysan calaamadan cidna dooran karin waxayna soo aadeen kor. runtii waxa u suurta gashay inay si qurux badan ugu dhawaadaan qoraxda. shaqaaluhuna waxay bilaabeen inay wada sheekaystaan waxayna keenayaan fikradda inay hagaajiyaan jihooyinka si ay ula xiriiraan dhulka. James Mack uma malaynayo inay tani tahay fikrad fiican sababtoo ah howlgalkooda ayaa ka muhiimsan midaani. maxaa yeelay waxaana aad u culus dayax-gacmeedka ay hadda saaran yihiin. haddii ay sidaani kusii socdaana wax walba way dhammaanayaan iyagoo halaagsamaya. dhan kale waxaa laga yaabaa inaysan jirin dad badbaadin doona dayax-gacmoodkooda. waxayna go'aanka uga tegayaan gabadhii lagu magacaabay Robert Keba sababtoo ah waxay leedahay aqoonta fiisigiska si uu ogaato wax ugu fiican. kadib markii ay xisaabisay waxay ogaatay in meeshaan uu ka dhow yahay bam gacmeed maxaa yeelay waxay ku soo dhawaadeen qoraxda. waxayna bilaabeen inay xirtaan qaabka si u duulaan maxaa yeelay dayax-gacmeedkooda ayaa dhinac ka taabtay qoraxda. ma kula tahay in la taaban karo qoraxda? kolley aniga maya. taabasho iska daayay xitaa looma dhowaan karo qoraxda. sheekada filimka aanoo sii wado. dhanka kale dayax-gacmeedka waxa uu taagan yahay meeraha Mercury kadibna Taray waxa uu hagaajinayaa jihooyinka. laakiin midaasi waa uu hagaajiyay laakiin qaladka uu sameeyay ayaa ahaa inuu iloobay dib u habeynta uu ku sameeyay gaashaanka dayax-gacmeedka kaasoo ka ilaalinaya qoraxda inay waxyeelo u geysato ayaga. markaana waxaa laga yaabaa inay dhammaantooda baaba'aan. Kanada iyo gabadhii Roberta waxay fooliyaan meel bannaan ah si u dayactiraan dayax-gacmeedka ka leexita qaybta dhaawaca ee gaashaanka ka fogeynta qoraxda taasoo keenaysa khasaaro badan. si kastaba haatee tani waxay sidoo kale sababi kartaa inay halaagsamaan waxayna keeni kartaa iftiinka ay wadato qoraxda inay burburiso beerta oksijiinka taasoo ku dhex taala dayax-gacmeedka kaydka oksijiinka inuu xumaado. James Mack iyo Crozon iyo Kezia si gaar ah ay u wada sheekaysanayaan halkaasoo Crozon ay u sheegayso inuu oksijiinkoodu yahay mid aad u yar bal daawadu haddii aan mid ku weydiiyo ka waran qoraxda aan mar walba haysano haddii la waayo maxaa dhici lahaa.
nagula wada qaybta hoose ee faallada markaana waxay go'aansadeen inay iskala qaybiyaan si ay dhammaan dayax-gacmeedka ugu warqabaan waxaana la gaaray habeenkii waxayna bilaabeen inay habeenkii dhex wareegaan dayax-gacmeedka dhexdiisa waxayna halkaasi ka heleen biyo iyo cuntaba waxayna hubiyaan biyaha iyo cuntada iyagoo helaya akhbaaro badan oo ka mid ah dayax-gacmeedka oo miyaysan horey ogeyn dayax-gacmeedka akhbaartiisa bal nala soco gadaal ayaan ka ogaan doonaa James Meg waxa ogaanaya in dhammaan nidaamyada ay yihiin kuwa shaqeynaya marka laga reebo inuusan ka warhelin kombiyuutarka duulimaadka balse waxaa meeshaasi ka soo muuqday falan naxdin leh maxaa yeelay waxay shaashada ka arkeen Peter Parker kaasoo wejigiisa uu guduudan yahay waxaadna moodaa inuu dhiig ku qabeystay wuxuuna u sheegay inay ka tagaan risaaladani ama goobtani sababtoo ah maahan inay halkaani sii joogaan James Mark waxa uu sii wadaa inuu sii raadiyo sharaxaad dheer waxa uuna ogaaday in qaab dhismeedka ugu muhiimsanaa la burburiyay dayax-gacmeedka dhanka kale Siri waxa uu soo galay qolka kormeerka wax uun ugu dambeyntii helay shaqaalihii dhammaan meedadkooda isla markiiba asxaabtii dhinaca kombiyuutarka fadhisay waxay dareemeen dhaqdhaqaaq maadaama uu James Mark uu meel khaldan galay waxaana meeshaasi ka dhashay dhaqdhaqaaq halaag wata maxaa yeelay meehan inuu meeshaasi imaado kadib waxaa soo laabtay James Mark balse mid ka mid ah ayaga ayaa doonaya inuu u tallaabo dayax-gacmeedka ayaga u dhawaac balse asxaabtii ayaa u diidaysa midaasi وأنا كوحنا قياسه قيرني أو ده مياه دقيق علينا يسان إن هن كبد بعده هالكاني وحنا قانسني إنه إسكتوا ردي حق عميتك وحنا إسكتوا دوب يبع كل جنيه دربجا وحنا راعي صاحب كيسة وحنا إسكتوا رندي حق عميتك بس صاحب كيسة وأوكسو هريا وحنا للدنيا كليسة مية كلها إنه بدبادي كاسوا كدية kadib waxay soo yimaadeen hal meel iyagoo la yaabana qaabkii uu isku halaagay saaxiibkooda waxayna isweydiinayaan dhexdooda sidii ay macquul gal ku noqon lahayd inay dhulka si nabad ah ku tagaan intaas kadib James Mark ayaa soo baxaya isagoo banaanka soo aadaya waxa uu arkayaa saaxiibkiisa oo gacanta iska jaray waxa uu u wacayaa shaqaalihiisa oo arkaan balse waa uu noolaa saaxiibkiisa waana kiis ka tuurayay dayax-gacmeedka oo miyuu weli nool yahay markii ay asxaabtu u yimaadeen waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo asxaabtii waxaana laga yaabaa inay waxyeelo soo gaareen asaga waa kana Terry waxa uu ogyahay inay dib ku qabaan qaabka neefsashada waxa uu fiirinayaa sida ay wax u dhacayaan iyo sidii ay ku badbaadi lahaayeen balse waxa uu dareemayaa shanqar waa uu soo baxayaa si uu soo hubiyo shaqartaasi waxa uu soo galay keedka iftiinka qorraxda laakiin waxa weerar ku soo qaaday Peter Parker waxa uu ahaa mid waalan oo qalafsan waa uu ka soo cararayaa Terry balse Terry waxa uu soo cararayaa si uu naftiisa ugu badbaadsado ninkaani waalan laakiin ninkii ma ahan mid ka haraya asaga waa tan gabadhii Roberto Keba waxayna helaysaa geed ka soo baxaya dayax-gacmeedka dushiisa wayna ku farxaysaa geedkaasi balse bir ayaa dhabarka laga taagaya waxaana dilya wuxuushkii ee Peter Parker ahaa waa kana Terry waxa uu dareemayaa cabsi badan isagoo xiranaya jaakad madow ah waxaana gabiyaan badamay leerkii dayax-gacmeedka gabadhii Casey way iska jiiftaa iyadoo hurdaysa laakiin waxay dareemaysaa koronto la'aan wayna soo bixaysaa si u soo baarto waxayna soo qaadanaysaa toosh balse waxa soo weeraray oo dafinikii Peter Parker ahaa qolka kontaroolka James Mark waxa uu dib u howlgelinayaa kombiyuutarada isagoo wata bateri degdeg ah laakiin waxa uu arkayaa Terry kaasoo dhex fadhiya mugdiga waxa uu u sheegayaa inuu isticmaalo isgaarsiinta koofiyadda suudka markaasna waxa uu sheegi karaa wax ku saabsan Peter Parker iyo qibladiisa James Mark waa uu soo baxayaa waxa uu soo galaa qaboojiyaha si uu soo rakibo korontada waxaana dib u soo laabanaysa korontadii Peter Parker waxa qabanaya iftiinka korontada balse asaga waxa dhibaya iftiinka korontada waxa uu soo weerarayaa gabadhii Casey oo weli nool balse saaxiibteeda ayaa isku dayaysa inay badbaadiso laakiin way u suurtageli waysay ayada James Mark waxa uu ku jira fridge qaboojiyaha dayax-gacmeedka halka Terry asagana uu banaanka joogo taabadalkeeda markaana James Mark waxa isku dayaa inuu qabsado dharka badbaadada si uu uga hortago ninkaan Peter Parker markaana waa kana ninkii Peter Parker isagoo soo gastay dharkii badbaadada halka James Mark oo in yar u sii barafooya ilaa uu ku dhinto waxa uu ku jira fridge qaboojiyaha halka Peter Parker oo soo galay qolkii kontaroolka isagoo qasaya dhammaan kontaroolka dayax-gacmeedka markaana dayax-gacmeedka waxa uu noqonayaa mid halaagsami doona waa kana Terry waxa uu imaanayaa gabadhii Casey isagoo dhuumanaya waxa uu hubinayaa inay nooshahay balse way nooshahay ayada waxaana soo weeraray ninkii Peter Parker waxa uu isku dayaa ninkii Peter Parker inuu gabiyaha bedelo ninkii Terry laakiin waxa garab siinaya gabadhii Casey waxaana soo tuuray ninkii Peter Parker waxaana halkaas ka qarxaya dab maxaa yeelay waxa systemkii soo qalday ninkii Peter Parker waxa uu sababay inay gubato dhammaan halkii ku sugnaayeen markaana dhulka barafka waxa uu noqday mid qorrax leh waa kana Terry waxa uu familkiisa u duubiyaa video isagoo u sheegay inuu weli nool yahay filimkiina halkaas ayuu noogu dhamaaday maanta muuqaalkeena waxa uu mid aad u xiiso badan intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino